maqaaxida labaad ee dunida ugu weyn ee samaysa cuntooyinka fudud ee loo yaqaan fast food 25,000 oo xarumood ayay ku kala leedahay caalamka. maqaayada caanka ah ee KFC qof walbana uu jeclaan lahaa maanta in chickenkeeda uu cuno. haddaba xagee ka soo bilaabatay guusha maqaaxida KFC? magacaygu waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba joogtaan soo dhawaada. muuqaalkeena waxaan kaga hadlaynaa guusha iyo meesha ay ka soo bilaabatay maqaaxida caanka ah ee KFC. qisada KFC waxay ka soo bilaabatay Harlan Sanders oo dhashay September 9keeda 1890 wuxuuna ku dhashay magaalada Indiana ee ku taala wadanka Mareykanka. asagoo 5 sano jira ayaa waxaa dhintay aabihiis. Sandersna waxaa la dhashay 2 ciyaal oo ka yara. hooyadood ayaa waxay go'aansatay in masruufka ilmaheeda ay dusha saarato, waxayna ka shaqo bilowday shirkad samaysa yaanyada. sida subax u baxda ayay habeenkii imaan jirtay oo waxay qaban jirtay shaqo full time ah. Sanders ayaa xaafadda uga tagi jirtay si uu ilaaliyo ogana taxadaro ilmaha ka yar intii hooyadii maqan tahay. wuxuu bilaabay inuu barto sida cuntada loo kariyo maadaama asaga iyo walaaladiis ka yar ay xaafadda joogaan oo aysan haysan qof cuntada u kariyo. cunto karintii ayuu bartay, waliba waxaa la sheegaa in habeenkii waqti dambe uu ku gaari jiray si uu si fiican ugu barto cunto karinta. da'da 10 sano markuu soo gaaray ayuu shaqo ka helay meel beer ah, laakiin asbuuc kumuusan nagaadin shaqadaas oo waa laga soo ceeriyey. sababtana waxay ahayd in shaqadiiba uu fahmi waayey maadaama da'diisa ay aad u yarayd. hooyadii ayaa canaanatay oo ku qaylisay markii shaqada laga soo ceeriyay kadib oo ku tiri meeshaad isaaciidayn lahayd oo ciyaalka ila korin lahayd ayaad ciyaar iyo dheeldheel ku jirtaa oo shaqada lagaaga soo ceerinaya. laakiin hooyadii wuxuu ka ballan qaaday in markaa shaqo fiican uu heli doono ayadana uu garabkeeda noqon doono. Sanders iyo qoyskooda nolosha ayaa ku adkaatay. hooyadiina waxay go'aansatay inay iska guursato, laakiin ninkan ay isguursadeen ma uusan jecleen ciyaalka ay haysato. Sandersna wuxuu sheegay in ninkan ay hooyadii soo aroostay oo mar walba dhibaato u geysan jiray asaga iyo walaaladiis ka yar. ugu dambeyntiina wuxuu go'aansaday in xaafadda uu iskaga tago markuu soo gaaray da'da 12 sano. 13 jirkiisana wuxuu iskaga tagay iskuulka wuxuuna uga tagay galaaska 7 kadib asagoo sheegay inay ku adkaatay xisaabta aljabra oo uu fahmi waayey. Sandersna magaalada ayuu galay asagoo juhdi badan ku bixinaya inuu shaqo helo si nafsadiisa u dabaro, laakiin nasiib xumo shaqo walba oo uu helo waa laga soo ceerinayay. shaqooyinka isku dayay inuu ka shaqeeyo si noloshiisa u dabaro waxay ahaayeen wuxuu soo noqday conductor ama crash boy. wadooyinka ayuu ku iibin jiray kabaha celiska ah. sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay garage ama garage. shaqaalaha maraakiibta xamuulka ayuu soo noqday. wuxuu sidoo kale soo qabtay shaqo secretary ah. wuxuu soo noqday painter ama ninka guryaha rinjiyeeyo. marka ugu dambeysana wuxuu noqday askari oo wuxuu ku biiray ciidamada wadanka Mareykanka. shaqadaas ciidan ayuu ka soo shaqeeyay muddo 6 bilood ah, wuxuuna ka mid ahaa ciidamadii Mareykanka u qaaday wadanka Cuba. meeshaas ayuu ka soo hawlgalay, laakiin nasiib xumo 6 bilood oo ciidanka ku jiray waa laga soo ceeriyay ciidanka. sababta ciidanka laga soo ceeriyayna waxay ahayd da'diisa oo been ka sheegay. waagaas underage ayuu ahaa oo wuxuu ka yaraa da'da 18 sano, laakiin wuxuu sheegtay inuu jiro 20 sano. isku day walba oo uu sameeyo ku fashilmayay. 18 sano ayuu ku guursaday, laakiin markaa nolosha way adkaatay oo meesha waxaa imaaday xaas, ciyaal ayaa imaanayo, mas'uuliyaduna sii adkaanaysaa. asagana shaqo ma hayo oo shaqo walba uu tago waa laga soo ceerin jiray. wuxuu mar kale isku dayay inuu iskuulka ku laabto balse shaqo professional oo u helo markuu iskuulka shahaado ka soo qaato, laakiin nasiib xumo iskuulka waa laga diiday. waxay noloshaas ku wada jiraan isaga xaaskiisaba waxay isku dhaleen ilmo oo meesha waxaa imaaday ciyaal, waxaana u dhashay wiilkiisa curadka ahaa. laakiin xaaskiisa ayaa ku dhibsan jirtay, waxayna isku dagaali jireen mar walba shaqo la'aantiisa iyo nasiib xumadiisa. asagana mar walba wuxuu ku qancin jiray inuu shaqo helayo, noloshoodana isbedeli doonto. meel ayuu shaqo u doonanayaa, bil ayuu ka shaqeynayaa, shaqadii waa laga soo ceerinayaa. meel kale ayuu shaqo geysanayaa, waa laga diidayaa. noloshiisaba waxay ahayd nolol sidaas ku socoto. ugu dambeyntii ayuu shaqo ka helay meel tareen ah oo tareenada ayuu kala hagi jiray, wuxuuna istaagay wadada tareenka ama railwayga. sidoo kale meeshii asagoo muddo bil ah ka shaqeynaya ee shaqadii laga soo ceeriyay. xaaskiisana way ka tagtay, waxay ka kaxaysatay ciyaalkii. wuxuu isku dayay in xaaskiisa uu soo ceshto, laakiin way ka diiday. 1947 ayaa waxaa dhintay wiilkiisa curadka ahaa oo markaas jiray da'da 20 sano. waa wiilka kaliya ku tashanaya oo isdhahayay wiilkaaga ayaad maanta ku nasanaysaa. dhimashada wiilkiisa kadib Sanders wuxuu iskaga soo tagay magaaladii, wuxuuna soo aaday magaalada Kentucky. magaaladan waa magaalada noloshiisa bedeshay, waa meesha ay ka dhalatay KFC. magaca KFC waxaa laga soo gaabiyey magaaladan magaceeda oo ah Kentucky Fried Chicken. wuxuu ka shaqo bilaabay shirkadda shidaalka ee Shell. si lacag dheeri ah uu u sameeyo wuxuu go'aansaday in shirkadda shaqaalaheeda iyo macaamiisha shirkadda uu ka iibiyo cuntooyin fudud uu soo sameeyo, maadaama xirfadda kaliya uu yaqaanay ee ahayd sida cuntada loo kariyo. miis ayuu soo qaatay, 6 kursi ayuu geesaha ka kala dhigay, wuxuuna u samayn jiray dadka rooti iyo cuntooyin fudud. laakiin waagaas ma uusan samayn jirin chicken. samaynta chicken ama in la kariyo waagaas waxay qaadan jirtay 35 minute ilaa 30 minute, laakiin Sanders way ku adkeed waqtiga intaas la egna ma uusan haysan. laakiin wuxuu ku fakaray in waqtigaas waqti aad uga yar uu ku sameeyo chicken. wuxuuna soo iibsaday digsiga lagu magacaabo pressure cooker oo waagaas dunida ku cusbaa, waxaana waagaas loo isticmaali jiray in lagu kariyo qudaarta. asagana wuxuu ku tijaabiyay inuu ku kariyo chicken. nasiib wanaag chickenkii
lagu karin jiray 35 minit Sanders waxay ku qaadatay 8 minit ilaa 9 minit wuxuuna isticmaalay 11 spices xawaajiyada ku carfin jiray kuna dari jiray chickenka waana sirta dhadhanka KFC oo uga duwan tahay chickenada kale caalamka chickenka Sanders uu sameeyay ay dadka aad u jeclaadeen musaafiriinta dadka dalxiiska magaaladan u imaanayo ayaa ka wada iibsan jiray wuxuu bilaabay in xayisiin uu sameeyo chickenkiisa magaalada guryaha jajaban iyo geedaha ayuu ku qori jiray magaca KFC laakiin waagaas magaalada waxaa ka jirtay maqaaxi sameeysa chickenka oo lagu magacaabo Stewart waxay ka xanaaqeen ama ka maseereen waxyaabaha uu sameeyo Sanders sababtoo ah chickenka Sanders ayaa aad loo jeclaystay oo magaalada oo dhan waxay wada gadanaysaa chickenka uu Sanders sameeyo kadib waxay bilaabeen inay ka masaxaan ama ka tirtiraan xayisiimihii uu ku sameeyay darbiyada magaalada Sandersna aad ayuu uga xanaaqay wuxuuna isdhahay ganacsiga ku soo kacay ayaaba dagaal lagu yahay digniin ayuu u diray wuxuuna u sheegay waxay wadaan hadii joojin waayeen inuu tooganayo wuxuu sii watay asagana xayisiintiisa asagoo darbi walba ku qorayo magaca KFC ayagana waxay sameynayaan intay ka daba imaadaan ayay tirtirayaan magaciisa Sanders wuxuu go'aansaday inuu la soo hadlo maqaayada kuna soo qanciyay in shaqadooda ay wataan asagana shaqadiisa u wadanayo sidaas lagu kala joogo wuxuu soo kaxaystay laba nin oo manager ka ah shirkadda Shell waxayna soo aadeen maqaayadii ninkii maqaayada iska lahaa ayaa arkay Sanders iyo labadan inuu ku soo socdo bistooladiisa ayuu la soo baxay maadaama digniin uu hore u haystay oo lagu dhahay hadii waxaad wada joojin weydo waa ku tooganaya bistoolada ayuu la soo baxay wuxuu furay xabadina waxay ku dhacday mid kamid ah managerada Shell Sandersna bistoolad ayuu la soo baxay ninka ayuu xabad ku furay garabka ayaa uga dhacday meeshii boolis ayaa imaaday ninkii waa la qabtay xabsiga ayaa la geeyay waxaa lagu xukumay 18 sano xabsi ah maadaama uu geystay dil laakiin Sanders asaga xabsi lama gelin oo wuxuu sheegay in self defense uu waday ama uu difaacayo naftiisa meeshaasna waxaa ka baxday maqaayadii Sanders kula jirtay tartanka asagana wuxuu sii watay inuu sii ballaariyo ganacsigiisa chickenkiisana sii iibiyo shirkadii uu ka shaqeynaya Shell meel u dhow ayuu ka furtay maqaaxi ganacsigiisana uu sii hormariyay chickenka uu sameeyay waxa aad u iibsan jiray dadka musaafiriinta ku ah magaaladan iyo dadka dalxiisayaasha ah laakiin mar walba Sanders waa uu nasiib xumaa ganacsiga cusbaa iyo maqaayadii uu markaas dhisay ayaa ka gubatay markuu damcay in dib uu u dhiso maqaayadan waxaa qarxay dagaalkii labaad ee adduunka waxaana istaagay isku socodkii oo ganacsigiisa 90% wuxuu ku tirsanaa dadka musaafiriinta ah iyo dadka dalxiisayaasha ah wuxuu gaaray da'da 65 sano wuxuuna noqday hawlgab oo shaqada ayuu ka fariistay waxaa u soo dhacay dawladda uga imaaday insurance social security paycheck jeega la siiyo dadka hawlgabka ah oo shaqada ka fadhiistay jeegaasna waxaa ku qornaa in la siinayo bil walba $105 maadaama hawlgab uu noqday $105 aad ayay u yar tahay oo way adag tahay in qof uu ku noolaado lacagtaas hadal aan sugnayn ayaa sheegaya marka uu jeega helay Sanders inuu go'aansaday inuu isdilo maadaama uu meel walba ku fashilmay Sanders wuxuu ku fakiray inuu sameeyo isku dayiisa ugu dambeeyay wuxuuna isweydiiyay su'aalo ah maxaad ku fiican tahay xirfadda kaliya oo uu yaqaan waxay ahayd sida loo sameeyo chicken maadaama chickenka uu sameyn jiray ay jecelaysteen dad aad u badan wuxuuna go'aansaday inuu sii wato inuu sameeyo chickenkiisa gaarigiisa ayuu ku soo qaatay digsiyada wax ku karsan jiray kadib wuxuu bilaabay safar uu ku marayo Mareykanka oo dhan asagoo iskaga kala gudbayo gobol to gobol magaalo to magaalo wuxuuna bilaabay inuu u tago maqaaxiyaha sameeyo chickenka asagoo la kulmay managerka kuna qancinayo inuu jikada u galo oo u sameeyo chicken hadii chickenkiisa macaamiisha ay ka helaan oo la iibiyana xabadii chickenkan ay u saaran tahay faa'iido 4 senti oo kaliya ah laakiin maqaaxi walba oo u tago way ka diidayeen waxaa la sheegay in laga soo diiday oo reject laga siiyay 19 maqaaxiyood oo sameeyo chickenka 1952 ayaa waxaa aqbashay maqaaxida ugu dambeysay milkiilaha maqaayadan waxaa lagu magacaabaa Peter Haman ayuu la kulmay wuxuuna ku qanciyay in jikada uu u galayo chicken uu u sameeyo hadii chickenkaas macaamiishiisa ay ka helaan uu la joogayo asagana xabad walba chicken ay u saaran tahay 4 senti oo kaliya heshiiska ayaa wada qaateen Sanders wuxuu bilaabay in jikada uu maqaayadaas u galo si chicken ugu sameeyo maqaayadaas cusub ee chickenka u sameeyay jiray sanadkii koowaad waxay heshay faa'iido ay ku heli jirtay 3 sano oo dadka waxay aad u jeclaadeen chickenka uu sameeyo Sandersna maqaayadaas wuxuu ka helay lacag yar faa'iido ah wuxuuna go'aansaday inuu asaga sameesto maqaayad oo asaga gooni u leeyahay laakiin midda xusida mudan ayaa waxay ahayd Sanders lama uusan wadaagin 11 spices xawaajiyada uu ku dari jiray ama ku carfin jiray chickenkiisa sababtoo ah waxay ahayd sirta kaliya isku ilaalinayo 1963 Sanders waa iskugu aaday oo u fadhiisatay lacag ayuu helay maqaaxida KFC waxay xarumo ku kala lahayd USA iyo Canada laakiin wax walba hadda ay isbedelayaan koox ganacsato ah oo hogaaminaya wiil 29 jir ah oo lagu magacaabo John Brown ayaa waxay u imaadeen Sanders waxayna u soo bandhigeen heshiis ah inay ka iibsanayaan maqaaxiyihiisa KFC Sandersna waqtigaas da'diisa waxay ahayd 73 jir waa uu ka diiday heshiiskii laakiin wuxuu ku fakiray hadii bari u dhinto in ganacsigiisa iyo magaciisa meeshaas ku baaba'ayo kooxdu dib ayay ugu soo laabteen waxayna u sheegeen in $2 milyan miiska saareen si ay uga gataan maqaaxiyihiisa Sanders heshiiska u aqbalay laakiin wuxuu ku xiray shuruudo in magaca KFC ay sii jiri doonto oo aan la bedeli doonin hadii maqaaxiyihiisa la iibiyo midda labaad in 12 spices xawaajiyada uu ku carfiyo kuna daray chickenka lagu sii wado maqaaxiyihiisa oo aan waxba laga bedelin qaabka uu chickenka u kariyo midda saddexaad in sawirkiisa loo adeegsado loogada KFC kooxdu way aqbaleen heshiiska meeshaasna Sanders wuxuu ku qaatay lacagtiisa $2 milyan wuxuu bilaabay in lacagihiisa iskaga raaxaysto isagoo marba wadan u
safrayo TV-yadana waraysi siinaya wuxuu isku bedelay dhiirigeliye 1971 John Brown oo ahaa milkiilaha gatay KFC ayaa wuxuu ku sameeyay ganacsiga horumar aad u weyn maqaaxiyaha KFC-na wuxuu ku faaftay caalamka maqaaxiyihii KFC-na wuxuu ka iibiyey koox ganacsato ah kooxdan ganacsatada ah maqaayad wax badan ayay ka bedeleen waxay meesha ka saareen 12 spices ama xawaaji oo isbedel badan ayay ku sameeyeen maqaayada Sanders-na asagoo safaradiisa ku jiro marba wadan tagayo waxa uu booqan jiray maqaaxiyaha KFC laakiin wuxuu dareemay in dhadhanka KFC isbedeshay maadaama kooxdan cusub ee KFC gatay ee meesha ka saareen 12 spices Sanders wuxuu bilaabay in maxkamadda uu ka dacweeyo kooxdan gadatay KFC sababtoo ah heshiiska laga gatay ayaa waxa kamid ahayd in 12 spices la isticmaali doono oo dhadhanka KFC aan waxba laga bedeli doonin wuxuu bilaabay inuu furto maqaaxi kale asagoo isticmaalaya dhadhanka KFC lagu yaqaanay wuxuu isticmaalay 12 spices maadaama magaciisa waagaas uu caan ahaa oo dadka ay ku yaqaaneen KFC waxay bilaabeen dadka in maqaaxidiisa imaadaan oo wax ka iibsadaan kooxdii gadatay KFC ayaa waxay dacweeyeen Sanders maqaaxidiisa oo shirkadii KFC ayaa waxay dacwad ka gudbisay maqaaxidan cusub ee Sanders uu furtay Sanders wuxuu maxkamadda ka dalbaday in la siiyo lacag 122 milyan oo magdhow ah maadaama shirkadan ay isticmaalayso magaciisa loogadiisa 12 spicesna ay meesha ka saareen heshiis kadib Sanders waxaa la siiyay 1 milyan Sandersna ugu dambeyntii wuxuu ku dhintay da'da 90 jir maqaaxida KFC-na waxay ku kala fiday caalamka maantana waxay leedahay 25,000 oo xarumood waana maqaaxida labaad ee adduunka ugu weyn ee samaysa cuntooyinka fudud ee loo yaqaan fast food ama chickenka muuqaalkeen intaas ayuu noogu egyahay haddii aad ugu cusub tahay soo dhawow muuqaalka like saar si dad badan u sii gaaro waqtigaagana waad ku mahadsan tahay